بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت سلام الإسلام في الصلاة يعني سوق الجرياش حفلة عقولنا بدل يسوي جرا نبينا وياشا مسؤولين تا مرتدا فنانين تا بس هو بيكرر لكن لما تيجي وحوي وانا سلام كذب وحوي سوق بالويري أنا واحد رميش على إن أنا بقول مهمة عاوة تبدو بيو عملية عاتها وقبها أنا وحنا بعيا مدحوينها إن تربي الكؤول لو قديو لو دعاء الكؤول ينا لو قديو وبعد قضاء أيام بينا منطقة آخر تدقيقون للسيئي عن كل استعمال مدحوين حسن الشيخ محمود ومدحوين في الكسوة قبتي ومدحوين وضع الكسوة معمولي وأضيف البلد بضمنه طبعا وحوي وحيانا بلانه بدل كلام marka ka waxaan talo mariyo taladu maxay tahay wadda Soomaaliyeed waa kala yaacsan tahay waa kala daadsan tahay koo waxa laga rabaa inuu la yimaado midnimo guud dhammaan wadda Soomaaliyeed 18 gobol ee Soomaaliya laga soo bilaabo labada jubbo labada shabeelle gedo bay iyo bakool hiiraan galguduud mudug bari nugaal sool iyo sanaay waqooyi galbeed togdheer dhammaan waxa laga rabaa ummadda Soomaaliyeed ee isku yiraahdo jamhuuriyadda waxaan ilaahay inta la tudooha khariidada waa jamhuuriyadda la yiraahdo waxa laga rabaa midnimada inuu ka shaqeeyo midnimada iyo midnimada labadaba inuu ka shaqeeyo loo baahan yahay markii madaxweyne midnimadu waa ku furan tahay waa qodob koobaad qodobka labaad waxa laga rabaa cadaalad madaxweynuhu inuu cadaalad la yimaado oo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye waa astaan qaran maanta ummadda Soomaaliyeed oo madaxweyne isaga u ah mid mucaarada mid muxaafada kulliba madaxweynahoodii weeye ولا لسه قد بشري متقنا ويا حسبيتي برنامج كانوا لسه قد دمانتين من حملها هو اسمها سدا دراد انت اصلا وحنا موضوع الصوماليات دمانتون انه عداله سبيه وحينها جميعها لو بعيا قدم كسدحان بحال لو بعيا امانه دور با لو بعيا من حملها انه امانه امه الصوماليات دورنا waa loo baahan yahay midda iyo midda labadaba waxa weeye isaga ayaa mataqaana waxa mas'uuliyad inooga sidoo kale waxa loo baahan yahay hoggaan wanaagsan madaxweynaha inuu hoggaan wanaagsan uu ku hogaamiyo waxa la yiraahdaa astaamaha ugu wanaagsan ee ugu macquulsan ee hogaamiyaha laga rabo maxay yihiin mataqaani ma hogaamiyuhu waa inuu dhinacyadiisa fiiriyo ummadaadii oo dhan kula socotaa hogaamiyuhu hadduu noqdo hogaamiye laba qof hogaaminaya waxa weeye hogaamiyadiisu waxa weeye waxba ka naaqusan laakiin maxaa la rabaa markii aad hogaamiye tahay markii aad gudoomiye tahay markii aad maamulo tahay waxa laga rabaa inaad dhinacyadaada fiirisid yaa kula socda yaa ka maqan waxa la rabaa in ummadda Soomaaliyeed oo dhan hogaaminta ku hogaamiyo sidoo kale waxa weeye talada waxa kamid ah waxa weeye dabcan xasan sheekh